الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تبارك وتعالى درسيا inoo socday almarأة almuslima ay shaksiyat almarأة almuslima, sifaadka gabadha muslimada laga rabo ayaynu ku dhex jirnay, weliba baabkii koowaad oo ahaa almarأة almuslima maca rabbiha, seebay ilaahay ula dhaqmaysaa, waxyaalaha ilaahay uu ku waajibiyey seebay u gudanaysaa. waxaynu ka soo hadalnay dhowr arrimood. qodobka waxaan caawa ka qaadaynaa 16aad, waxaana ugu dambeeya aynu soo sharaxnay kii 15 oo ka hadlayay xijaabka. qodobka 16 waxa uu oranayaa tatajanabu alikhtilaaq almutlaq, gabadha muslimada waxay ka dheeraanaysaa alikhtilaaq birijaal, ragga inay dhex gasho. way ka dhowrsanaysaa meelaha ikhtilaadku ka imaanayo oo rag iyo dumar la isdhex yaacayo oo aadaabtii islaamka lagu burburinayo. waayo sababtu waxa weeye gabadha muslimada oo caqliga leh waxay dareemaysaa ikhtilaadka oo rag iyo dumar ay isdhex gelayaan inay waxa weeye aad iyo aad u xun tahay oo dhibaato ay sababayso. haddaba gabadha muslimada way ka dheeraanaysaa, intay awoodo ayay iska ilaalinaysaa inay rag ajnabiya dhex gasho. falaa tascaa ilayhi, uma sacyinayso arrinta noocaasa inay ku degdegto lama rabo. waxaa la rabaa inay aad iyo aad uga dheeraato, inay ku dayato baa la rabaa oo uswo ka dhigato gabdhihii nebiga calayhi salaatu wassalaam, faatima binti rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam, iyo ummahaadkii mu'miniinta caaisha iyo waxa weeye xabsa iyo umu salama, inay ku dayataa la rabaa waxa weeye dumarkii nebiga calayhi salaatu wassalaam. inay ku dayato baa la rabaa nisaa asalaf asaalix ridwan ullahi calayhim min asaxaabati wataabiciin waman tabicahum biixsaanin. raggii waxa weeye salafu saalix dumarkoodii iyo gabdhahoodii aadaabta taariikhda islaamka aad iyo aad looga buuxiyey min asaxaabati wataabiciin ayay ku dayanaysaa, iyo waxa weye ciddii wanaag ku raacday. haddaba hadyiga dariiqaas, hadyiga mustaqiimka ayay gabadha muslimada raacaysaa. waxaana xaqiiqa ah oo waxa weeye tajribo lagu arkay oo xataa ay gaaladu ogaadeen, ama america dheh ama yurub dheh ama meel walba dheh, waxay ogaadeen intooda caqliga leh inuu ikhtilaadku dhibaato badan uu keenay. isdhexgalka oo waxa weeye madaaristii la isdhexgelinayay gabdhaha iyo wiilasha, markay sinil muraahaqa soo gaaraan oo dhowr iyo 10 jiro noqdaan, markii la isku dhex daro waxbarashadoodii hoos bay u dhacdaa. waayo sababtu waxa weeye ilmihii wiilkii hadduu arkaya gabar, waxa weeye waxbarashadiisii iyo waxii o dhan wuu ka mashquulaya, gabadhii waa mashquulaysa, cayaar baa loo jeensanaya. sidaa daraaddeed bay culamaau tarbiya marka ay ka hadlayaan, waxa uu soo guuriyey sheikhu waxa weeye mualifku wuxuu soo guuriyey dhowr waxyaalood oo ka sheekaynaya, oo waxa weye maaragtay qiso uu kasoo guurinayo nin ahaa suuriya oo waxa weeye culamaau tarbiya ahaa, ayuu wuxuu leeyahay waxa uu booqday waddan kale belgica, waa belgiumka ayuu booqday. markuu booqday ayuu wuxuu arkay madrase ayuu tegey. madrasadiibu wuxuu arkay iyadoo gabdhihii iyo wiilashii la kala saaray oo waxa weeye mid walba qeyb gaara laga dhigay. kaasuu weydiiyo wuxuu yihi maxaa dhacay ood saa u samayseen, oo iyagi waa gaalo. markaasay waxay u sheegeen, waxaanu ogaanay bay dhaheen, ilmaha waxbarashadiisu inay ku fiican tahay gabdhaha iyo wiilasha in la kala saaro. waa arrin aad iyo aad u cajiiba. haddaba marka taariikhulislaam xataa markii dadka islaamka
gabdhaha iyo wiilasha ay kala dhowrsanaayeen oo waxa weye maaragtay wiilasha gaar gabdhuhu gaar madaaristu ay kala saaraayeen aad iyo aad bay akhlaaqda islaamka iyo waxa weeye u wanaagsanay dadka akhlaaqdooda. sidoo kale wuxuu soo guuriyey in waxa weeye america ay ka dhacday saas oo kale, in waxa weeye ay kala saareen meelo badan oo waxa weeye xataa ay xukuumadda america ay ogolaatay in waxa weeye madaarista iyo jaamacadaha iyo kulli la kala saaro ayuu soo guurinayaa, oo akhbaarta iyo kulli waxa weeye ay caddeeyeen sanadkii 2002 waxa weeye taariikhda milaadiga. haddaba marka diinteena islaamkana 1500 sano ka hor bay ina fartay in waxa weeye rag iyo dumar la kala dhowrsanaado, oo waxa weeye ikhtilaafku ma banaana diinta islaamka ilaa wax markaas qofka wixii daruuro ah, oo waxa weeye intuu gabadhii ay waxa weeye dad wax weydiinaysa, ama waxa weye ninkii dumar wax weydiinayo, ama waxa weeye aadaab iyo waxa weeye xishood ku jiro, iyo waxa weeye xijaabkii gabadhiyo xijaaban, maaha sideeni waxyaalahan hadda jaahiliga hoos socda, oo waxa weeye madaaristii lagu khasbi jiray matalan Soomaaliya oo kale aad arki jirteen, waxa weeye gabadhii loo diidayo o laleeyahay madaxa soo qaawi, oo waxa weeye surwaal iyo shaati soo qaado, oo wiilal lagu sii dhexdaynayo. dhibaatada aynu aragnay baa ka dhalatay ikhwaani fillah. haddaba marka waxaa aad iyo aad u wanaagsan gabadha muslimada ah oo caqliga leh inay ku dadaasho intii ay awoodi karto inay ka dheeraato ikhtilaad الrijaal, inay ragga dhex gasho inay ka dheeraato. qaar badan baa waxay odhanayaan marka haddii aan raggii dee see uga dheeraanaya waan wada shaqaynaayo. marka horeba asalku waxa weeye gabadha muslimada gurigeeda inay joogto. ilaahay waa sharfay gabadha muslimada, wuxuu ku sharfay inay noqoto hooyo gurigeeda joogto, gurigeeda tarbiyeynaysa, oo iyada loo soo shaqaynayo, oo waxa weeye aan mas-uuliyad iyo cunto iyo waxa weeye lacag laga rabin, ee iyada wax walba loo keenayo, oo waxa weeye iyadu markaas tarbiyeynaysa ilmihii. haddaba waxaa loo baahan yahay akhawaati fillah, wixii ilaahay idinku talagalay inaad ka soo baxdaan, wanaaggu wuxuu idinku jiraa inaad guryihiina ku sugnaataan. waqarna fii buyuutikuna walaa tabarujna tabaruja aljaahiliyati alula, gabdhuhu inay guryahooda joogaan baa wanaagsan, oo waxa weeye ay maaragtay ilmaha tarbiyeeyaan. ma aha macnaha inaanu leenahay gabadhu yay wax baranin, oo gabadhu waxa weye wax ma qabsan kardo. ma aha, gabadhu wax waa baran kartaa, oo waxa weeye inay diinteeda barato, inay maadiga barato waa loo baahan yahay, laakiin wax walba waxaa ka awleysan oo ka horeeya horta inay diinteeda ilaaliso. gabadhu markay diinteeda ilaaliso oo waxa weeye diinteeda ay aad iyo aad u xifdido, ayay wax walba oo kale ay ka soo bixi kartaa, iyada oo fiirinaysa markaa waxa weeye xuduud sharci. wixii sharcigu u ogol yahay bay samaynaysaa, wixii aan sharcigu ogolayna banaankay ka maraysaa, iyadoo ku raali noqonaysa waxa weeye axkaamta diinta islaamka ilaahay u dejiyey. haddaba gabadha muslimada waxaa laga rabaa inay iska ilaaliso, idaan maslaxadi ugu jirin, inay waxa weye aad iyo aad iska ilaaliso oo ka digtoonaato waxa weeye maaragtay waxyaalaha noocaas. ama wixii maslaxad ku jidho, sida waxa weeye maaragtay maslaxad markaas ay fulinayso, ama salaadii ay imaanayaan masaajidka, ama waxa weeye markaa acmaal saalixa la wada qabanayo, laa ba'sa bihi haddii bixuduudi sharci ay tahay, oo waxa weeye dadkii la kala saaran yahay, oo nidaamka waxa weye lagu soconayo. ama ikhtilaafkan iska dhexgalka, oo rag iyo dumar la iska sheekeynayo, qaar baad arkaysaa guri bay wada imaanayaan, waxa weeye ajnabi baa la kelaya, waxay ku leedahay waa ina adeerke, waa ina habreedke, waa dumaashige. waxaasna hore baynu uga soo hadalnay, wax banaan inayna ahayn akhawaati fillah. qodobka 17 waxaan kusoo qaadaynaa laa tusaafixu الrijaala min gayri اlmaxaarim. gabadha muslimada ahi ma salaamayso. tusaafixu waa gacanta laysa saaro wey, oo gacanta laysku salaamo. laa tusaafix ay gacanteeda rag ajnabi ka a kuma salaamayso.
ama salaanta caadiga oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa taas waa banaan tahay oo rag iyo dumarba way ka dhaxaysaa dadka muslimiinta. haddii gabadhu ay rag soo marto oo way salaami kartaa, haddii waxa weeye ninkii uu dumar soo maro wuu salaami karaa, oo salaamta islaamka oo taxiyatul islaam ah waa jaa-isa, way banaan tahay rag iyo dumarba. ama dadka qaarkood oo quluwi ku sameeyey oo yidhi waxa weeye gabadhu ma salaamayso ragga, hada laysa bisaxiix. sida saxiixa oo sunnaha nebiga ku sugnaaday inay dumarku salaami karaan ragga, ragguna dumarka salaami karaan, laakiin waa salaan carabka ee gacan la isa saaraya ma jirto. gacanta waxa weeye dumarku iyagaa isa saarayo gacanta isku salaami kara, ragguna iyagaa laga rabaa inay gacanta isku salaamaan, laakiin gacan ma isa saarayaan rag iyo dumar kale ajnabiya. marka gabadha muslimada oo ilaahay ka cabsanaysa oo diinteeda ilaalinaysa, markay ikhtilaafkii rijaalka ka dheeraatay, haddana waxay kasii dheeraanaysaa in ay waxa weeye nin ajnabi ka ah ay gacanteeda la aado min gayri maxaarimiha, iyadoo aan maxaarimteedii ayna kamid ahayn ninkaas. waayo sababtu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam ficilkiisii iyo waxa weeye qowlkiisaba aad iyo aad buu uga hadlay arrinta noocaasa inayna banaanayn. caaisha radi allahu canha waxa ay leedahay kama rawahu lbukhaariy, imaam albukhaari sida uu warinayo, waxay tiri kaanat almu'minaat, gabdhaha mu'minaadka idaa haajarna haddii ay soo haajiraan, markay gabdhihii mu'miniintaa soo haajiraan oo dhulkoodii kasoo tagaan maka iyo oo ay yimaadaan madiine ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam, nebiga u yimaadaan, yamtaxinahunna wuu imtixaani jiray, siduu ilaahay u yidhi ya ayuha nabiy ya ayuha aladiina aamanuu ida ja'akum almu'minaat, hadday mu'minaadkii idin yimaadaan muhaajiraatin iyagoo soo haajiray, famtaxinuuhunna, imtixaana baa la yidhi. haddaba marka aayaddaasuu nebigu ku imtixaami jiray. qaalat caaisha waxay tiri markii aayadda akriday, tii ogolaata oo arrintaa ogolaata wuu u ogolaan jiray, oo waxa weeye imtixaanka ogolaata oo ka soo baxday imtixaanka, marka waxa weeye saas ayaa beecadeeda ay ahayd ee lagula baayactami jiray oo nebigu uu kula baayactami jiray. fakana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa aqrarna, haddii ay ogolaadaan oo markuu aayaddaa ku akriyo ay ogolaadaan aayaddaa waxa ay farayso, wuxuu ohan jiray indaliqna, orda baxa, faqad baayactukuna, waa idinla baayactamay oo beecadii waa idinka qaaday. waxay tiri marka caaisha radi allahu canha, laa wallahi bay tiri ma masat yadu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam yada imra'atin qad gayra anahu baayacahuna bilkalaam. waxay caaisha ku dhaaranaysaa oo dhaar ku martay inaa nebiga gacantiisu ayna naag gacanteed uuna weligii gacanta saarin oo salaamin, ay macnaha naagihii dee maxaarimtiisa aan ahayn, dumarkiisii iyo ilmihiisi laga hadlimayo, laakiin dumarkii kale oo caadiga ah ajnabiga ka ahaa weligii gacantiisa uma usoo taagin. marka saasuu ficilkii nebiga ahaa calayhi salaatu wassalaam. wallahi ma akada bay tiri rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam cala annisaa ila bima amarahu allah, wixii ilaahay amray buu kula baayactami jiray, kalaam buu kula baayactami jiray, ee marnaba ma dhicin inuu gacan usoo taagay. axaadiis saxiixana waxaa nabiga kaga sugnaatay inuu yidhi inii laa usaafixu nnisaa, anigu dumarka ma salaamo. haddaba marka qowlkii nebigana wuxuu ku caddeeyey inaanan anigu salaamin dumarka, ficilkiisiina wuxuu ku caddeeyey inuuna dumarkii salaamin. haddaba marka qowlkii nebiga iyo ficilkiisiiba markay iswaafaqeen, haddana u fiirso xadiidka kale oo saxiixa oo waxa weeye isagana ka hadlaya waciidka shadiidka oo ku soo arooray ninka iyo naagta ajnabiga kala ah oo gacmaha isa saaraya
oo gacantooda istaabanaysa iyo jirkooda iyagoo kale ajnabiya. can macqal ibni yasaar radi allahu canhu waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala inuu yihi lian yudcana fi ra'si axadikum an yudcana fi ra'si axadikum bimikhyadin min xadiid khayru lahu min an yamasa imra'ata laa taxilu lahu.